aayad qur-aanka kariimka ka mid ah haweenay faqiirada aan waxba haysan oo miskiinad ah ayaa akhrisay aayaddaas. ilaahay baa marka wuxuu u soo diray irsaaqadda ay raadinaysay. dad badan baa u soo tartamay si ay xoolo iyo lacag u siiyaan oo ay uga adeegaan oo shaqaalo ugu noqdaan. taasna waa amar ilaahay soo bixiyey tabaaraka wa tacaala. haweenaydan waxay maraysaa da'deedii meeshii ugu dambaysay, way xanuunsatay. xanuunkeediina wuxuu keenay in la yidhaahdo isbitaalkaad jiifsanaysaa oo ka bixi maysid muddo sannad ah. dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii ayaa waxay la yaabeen haweenaydan muddaday ku jirtay isbitaalka, dadkan aadka u tirada badan ee soo booqanaya weliba maalin kasta. carruurteedii, dariskeedii, dadkay isyaqaaneen si ay uga adeegaan waxbay u keenayaan, way u wehelyeelayaan. maalintii dambe kalkaaliyaashii mid ka mid ah ayaa su'aal waxay weydiisay haweenaydaas carruurtay dhashay mid ka mid ah, oo waxay tidhi, maalin kasta markaa hooyadiin soo booqanaysaan soo ma dareemaysaan dhib iyo mashquul, weliba adinkoo masaafo dheer ka imaanaya oo haddana howlo kale ay idinla xidhiiraan. marka saacadii walba hooyadiin baad u imaanaysaan, arrintaasi sidee idinla tahay oo u aragtaan? wiilkii baa wuxuu ku jawaabay aayad qur'aanka ka mid ah. kadib dariskii soo booqanaya haweenayda ayay isla su'aashaas weydiisay, waxayna ugu jawaabeen jawaabtii oo wiilka haweenaydu dhashay uu bixiyey. kadibna su'aashiibay mar saddexaad waxay weydiisay qaraabadii iyo dadkii kale soo booqanayay, ayaguna isla jawaabtii bay ugu jawaabeen. haweenaydii kalkaalisada ahayd way wareertay oo way yaab. markay haweenaydii isbitaalkii sanadkay ku jirtay uu wakhtigii u dhammaaday ee isbitaalkii laga saari rabo, ayaa haweenaydii kalkaalisada ahayd si degdega waxay ugu imaatay haweenaydii bukaanka ahayd. su'aal bayna weydiisay degdeg ah oo waxay tidhi, ma ii sheegi kartaa sirta ku jirta dadkan maalin kasta ku soo booqanaya ee farxadda kuugu imaanaya ee ka imaanaya magaalooyin kale, intaasoo mayl soo jaraya, masaafo dheer ka imaanaya? haweenaydii baa jawaabtay ayadoo dholla caddaynaysa, waxayna ku tidhi, gurigayga waxaa ooli jiray masaaxiif aad u badan, yacnii kitaabka qur-aanka oo badan ayaa gurigayga ooli jiray. waxaana isku dayi jiray inaana qur-aanka ka hijroona ka tegin oo aan akhriyo, walow kitaabka qur-aanka aayado ka midaba ha ahaadeen waxaan akhrinaye waxun inaan ka akhriyo. iyadoo hadalka sii wadata ayay waxay tidhi, markaan masaajid tago waxaan raadiyaabay tidhi musxafka ama kitaabka qur-aanka ee duugga ah ee dadku aysan ka akhrin qur'aanka ee kuwa cusub bay doontaane ee buska ama boorka uu fuulay, markaasaan soo qabsan jiray, waxbaan ka akhrin jiray wixii ii fududaada. markaan dhammeeyo aayaddaana akhrin jiray. marka aayaddaanaana ka tegi jirin oo qiraa'ada ama akhrintan kusoo khatimi jiray. aayaddu maxay leedahay? rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayruulwaarihiin. rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayruulwaarihiin. waa nebiyaasha ka mid ah oo carruur aan helin ayaa wuxuu leeyahay, ilaahow carruur la'aan hay dhigi, ilaahu ha iga tegiin anoo gablana oo keligay ah, adiga weeye midka wax bixiye. ujeeddadaydu waa maxay marka? ujeedkayga waxaa weeye kitaabka qur-aanka ama musxafka yar ee qur-aankuu ku qoran yahay gurigeenna waa dhex dhooban yahay oo waa dhex yaallaa. waxaaba laga yaabaa qoyskaada intuu ka kooban yahay qof in musxafka yaalla gurigaada uu musxafku badan yahay, maca daalika aada kala furayn, waa ka hijrootay. waxaa laga yaabaa masaajid markaad soo geshay inaad tidhaahdid musxafka waa mid duugoo jeexjeexan ama saane xaggayga dhig, midka kale iisoo qabo. kalaamka ilaahay sooma dhammaantood kuma wada qorna. ku dhiirigeli dadka oo xasuusi, ajarna shaqayso. xaraf kastoo qur-aanka ka mid oo laga hijroodina xasuusi dadka, ku xisaabtan gargaarka ilaahay tabaaraka wa tacaala. ilaahay baa u gargaaray haweenaydaas markay kitaabkii ilaahay u gargaartay intay ka taqaanay, ayadoo ku soo celcelinaysa rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayruulwaarihiin. isbitaalka markay gashay keligeed waa noqon kari weyde. qof kastoo magaceeda yaqaanaa imaan jiray, iska daa dadkii saaxiibadeed ahaa, carruurteedii iska daaya, qof walba u imaan jiray. qof walba markuu imaanayana lacag buu keenayaa, dhar buu keenayaa, cunto u keenayaa. qof walba ilaahay baa u adeejiye u soo diray kumaankum qof. marka iyadu u adeegtay kalaamka ilaahay oo ay ka mid tahay rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayruulwaarihiin. allahu akbar. rabbi oo karaamo badanida, karaamadana cida kama qaadi karto qof adugu aad karaamaysay. marka haweeneed waxay tidhi, sirta dadkaani soo booqanaya ilaahay ii adeejiyey halkaasay ka soo jeedaa, waa dhaqankaygaas ayay leedahay. ma og tahay qof yahow markaad musxafka qur-aanka gacantaada sidaa ugu qabatid inuu shayddaanku xanaaqayo oo kaa durkayo? soo ma ogid? markaad kitaabka qur-aanka aad furtidna sidaa u kala furtidna shayddaan uu ooyayo? soo ma ogid? markaad akhrinta bilowdid oo aad tidhaahdid bismillaah uu dilaacayo uu qarxayo shaydaan. markaad bilowdid suuraddana uu shaydaan miyir daboolmayo oo uu suuxayo? soo ma ogid?
ha ka tegin marka qur-aankaasi. allah idin barakeeyo. haddaad hadda nagu cusub tahayna taabo oo taageeradaadana sii si ay ku soo gaaraan wax kastoo cusub oo adiga ku khuseeya. mahadsanid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.